وبركاته. وأنا سلام الإمانتنا من ربع دنيا كجوكتان كسر هذا مقال عصب هذا بدل سوكا سبت القارقة ما تحني وذا سكين كير روتين كيا يبحيالها عصمستو أقدر يروحيجا haddana skincare-kan ayaa gudagalaynaa insha Allah waxaa soo qaatay silka cool oo qajaar ah wajiga ku scrub gareynaya maasha Allah wajigaagan wuxuu ka dhigayaa mid cajiib oo qurux badan si fiican u scrub gareynaysa wajigu ku liisheena wasaqda dhan uu ka qaadaya wuuna ku qaboojinaya scrub-kan aad u jeclaani waan isticmaalaa mar walba wajigaaga daryeel scrub-yada u sameey maasha Allah waji qurux badan hadii aad rabtid more waxyaabaha dabiici wajigaaga amrisid more qurux badnaado muuqaalkan hadii aad ka heshay fadlan like noo dheh subscribe noo saar channelka gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaal walba channelka soo geliyo insha Allah muuqaalkan like-tiisa hadee badato routine badan aan idin soo sameyn doonaa laakiin waxa ku xiran tahay inaan like-ta ka arko inaan ka heshay muuqaalkan insha Allah waxaan noo cadeynayso like-ta anagana waxay noo tahay dhiirigelin markii aad subax soo kacdid face wash-kaaga ku dhaqdid face-ka kadib waxa fiican inaad scrub u sameysid ama mask yar oo gacantaada ku sameystay inaad marisid wajigaaga si uu u noqdo waji liishe oo qurux badan sidoo kale maanta waxaan idin wadaagayaa sunblock aan isticmaalo mar walba kareemka qoraxda way fiican tahay inaad isticmaashid insha Allah 5 daqiiqo kadibna waa iska soo dhaqayaa waa ku scrub gareynaya 5 minutes kadibna waa iska dhaqina insha Allah biyo diiran loo isticmaalaya marka la iska dhaqaayo scrub-kan wuxuu ka caawinayaa inuu furfuro ilaha dhan oo wajiga sidoo wax walba aamirisid oo markaas uu gudaha ugu galo face-kaaga oo uu noqdo mid iftiin leh insha Allah si fiican labada gacan ugu massage gareynaa oo scrub gareynaya maasha Allah markaas sidaas ugu dhaqdid wasaqda dhan face-kaaga uu ka qaadaya sidoo kale saliidda uu ka yareynaya face-kaaga wuxuu ka dhigayaa mid yar oo qurux badan insha Allah marka isticmaashid scrub-yada aad u fiican yahay anti aging uu yahay halkan waxa ku soo diyaarsaday alaabtii jirka ku dhaqan lahaa maanta skincare-kayga ayaa idin la wadaagaya dhammaan waxa isticmaalo sokor soo diyaarsaday sidoo kale waranko multani powder waxa soo diyaarsaday saffron ama saffran sida u taqaanid qoyan iyo huruud iyo waxa shiidan soo diyaarsaday intaas ka sameynaya jirka ku dhaqanaysa maasha Allah jirkana wuxuu kaaga dhigayaa soft oo smooth ah sidoo kale skin glowing hadii aad jeceshahay mar walba isticmaal alaabtan hadana weelkan isku wada geenaya si aad u qasto maasha Allah farbadan noo saara si uu u gaaro dadyo aad u fara badan insha Allah hadana waxa ku darsanaya scrub oo laba qaande oo kafee ka sameysan face-ka iyo waxa loogu talagalay iyo badiga maasha Allah wuxuu ku qurxinaya sidoo kale waxa ku darsaday saliid oo huruud ah ama tamrik ka sameysan maasha Allah biyo ku daro waa isku qasaya alaabtana kula jirkaaga hadii aad ku dhaqdeed quruxu kaaga dhigaya oo ku cadeynaya si dabiici ah wasaqdana uu ka qaadaya jirkaaga wuxuu ka dhigayaa mid smooth ah ajactad lahayn insha Allah skin glowing uu ku siinaya alaabtan aad cajiib u tahay asxaabteeda qaaliga jimco mubaaraga idin leeyahay meel walba dunida ka joogtaan maanta waxa idin la wadaagaya skincare-kayga iyo waxyaabaha uu isticmaalo jirkayga sidoo kale had sidaas iskugu qasay smoothigaas isku noqday jirka dhan marso markii amristeed waxa ku joogaysaa 30 daqiiqo jirka markuu ku galo kadibna waa ka dhaqaysaa maasha Allah shampoo iyo waxyaabahaas gel ina ku dirto uma baahno scrub-ka isaga jirka dhaqaayo wana xumbeynaya scrub-kan ku daray insha Allah aaduna ku anfici doona maalinta naftaada aad qabatid meel saartid maasha Allah qurux adigna waa jeclaanaysaa ma fahanteen maalmaha dhan hadii aad si ordaysid arday aad tahay ama qof shaqeynay aad tahay maalinta jimcaha aan sanaysid jirkaaga shaqay timahaaga jirkaaga maasha Allah isbuuci hal maalin hadaa jirkaaga siisid aad qurxisid maasha Allah tintaadana anytime habeenkii iyo subaxiiba ashan leesid maasha Allah waxa ku noqonaya timo baxa oo qurux badan shanlada aad ugu dadaala routiinka shanladana aad muhiim u tahay sababtoo ah tintaada caafimaad qabkeeda hadii aad rabtid waa inaad shanlada u badisaa habeenkii inta seexan ka hor tintaada shanlay sidoo kale subax marka soo kacdidna shanlay timahaaga waa caafimaadka timiso tusay oo jirka had isticmaalaya qaabka loo sameeynayo waa idin tusay maasha Allah alaabtan smooth waaye jirka dhan way ku nadiifinaysaa sidoo kale face-ka xitaa waa u isticmaali kartaa body and face waaye aadayna ku cajabin doontaa insha Allah marka u horeysa ay isticmaashid waad ka heli doontaa insha Allah sida ku cajabsan waa arki doontaa jirkaaga uga dhigto mid iftiin leh oo qurux badan insha Allah hadana wajiga marsanaya maasha Allah wajigaagana wuxuu kaaga dhigayaa mid iftiin leh wasaqda dhan uu ka qaadaya sidoo kale dhalaal kugu furaya brighten
whiten dabiici ku siinaya maasha Allah isbuucii hal maalin haddii aad timahaaga iyo wejigaaga sidoo kale jirkaaga aad u goysid maasha Allah sidoo kale tinta habeen walba iyo subax walba haddii aad shilinaysid caafimaadka sare ayuu kugu sii qaadmaya waxaa kaloo kusii caawin karo saliidaha shaambooyinka isticmaalaysid inay ahaadaan kuwa tayo leh si timahaaga caafimaad qabkooda ay sare ugu sii qaadmo tintaadana meeshii ay rabtay inay kuu gaartaan ay kuugu gaarto insha Allah moor ah waxyaabaha dabiiciga isticmaashid moor timahaaga ay ku qurux badnaado insha Allah hadda waxaa ku joogaya 10 daqiiqo inta 10 daqiiqo sii joogayna gacmaha sii marsanaya jirka dhan waa soo marsanaya insha Allah kadibna waa isku soo laabanayna sidoo iigu soo baxo quruxda badan insha Allah alaabaha dabiiciga aad waxtar u leeyihiin qofkii joogtayna faa'iidadeeda uu arkaya iyo jirka sida uu qurxiso insha Allah adinkana tijaabiya marka sidaan u isticmaashid ku scrub garay jirkaaga ma sha Allah wuxuu ka qaadaa wasaqdan jirkana wuxuu ka dhigayaa mid iftiin leh insha Allah mar walba waxyaabaha dabiiciga ah isticmaashid moor aan noqotid qof aad u qurux badan sidoo kale subaxii marka soo kacdid waxyaabaha vitamin C ga aad u muhiim u yahay ina u isticmaashid face-kaaga si uu kugu noqdo face-kaaga mid aan lahayn anti aging ama ku soo degdegin gabowga sidoo kalena wajigaaga wuxuu ka ilaalinayaa qoraxda ku dhici lahayd ama baaninka kugu sameyn lahayd uu ka ilaalinaya wajiga qoraxda kaama gubeyso haddii face ka noqotid laba kalar sidoo kale uu ka caawinaya waxaan ila wadaagayaa seerumka vitamin C ga isticmaalo insha Allah alaabtan kugu sameyso ama wajigaaga ay gubto ay ka dhigto laba dhinac laba qayb oo kale qayb cad qayb madow in wajigaaga ka dhigto ka ilaalinaya wajigaaga hal midab ay ku noqonaya insha Allah markii vitamin C ga isticmaashid madmadowga ka ilaalinaya sidoo kale finanka uu baabi'inaya عجيب واye hada waa marsaday ma sha Allah si quruxda badan wajiga uu galaya wax yar marka uu marsanaado laakiin gacanta waa inaad ku massage gareysaa si uu gudaha ugu galo waxtarkana aad u hesho wajigaaga dhan wuxuu ka dhigayaa orange camlo ka dhigayaa ma sha Allah wuuna ku qurxinaya wuu ku dhalaalinaya عجيب waaye saxaabteeda qaaliga muuqaalkan waqti badan iga galay insha Allah like fara badan iyo saara siini share karee oo la wadaaga asxaabtiina kale sidoo dadyo aad u fara badan u gaaro insha Allah muuqaalkan rabitaankiina meesha subaxina waa marsadaa habeenkina waa marsadaa ma sha Allah in waxa way kareen oo dabiici ah oo anfacaya waji qaleel hadii aad qabtid aad ku moisturizing ku siinaya face-kana wuu ku qoynaya insha Allah isticmaala qolofta ka caawinaya wajiga kareemkan day and night waaye ma sha Allah wajigan wuu galaya dhaqsi uu galaya wajigaaga wax walba amrisid ku scrub garee si uu dhaqsi u galo insha Allah kareenkan markii amrisid ma ka muuqanayo hatta wajigaaga marka ku scrub gareysid ama ku massage gareysid ma sha Allah dhaqsi intuu gudaha u galo waxtarkiisana arkaysa laakiin subaxii habeenkii ina isticmaashid ayaa fiican si aad dhaqsi jawaab fiican uga hesho kareenkan aad u fiican yahay insha Allah wajiga waa iska soo dhaqay waa soo nadiifiyay sidoo kale alaabtii jirkeyga waa kusoo aniga dhan sidaas shacni u soo noqday kadibna hadda waxaa marsanaya waa sunblock cream wuxuu ka caawinaa wajigaaga kuleelka inuu ka ilaaliyo dadka make up ka jecel hadii aad tahay arday tahay mar walba isticmaasho sunblock uma baahanaysid make up ina marstid sidoo kale wuxuu ka difaacayaa kuleelka banaanka hadii aad aadist ina marstid muhiim waaye sidoo kale guriga hadii aad joogtid ina marstid kuleelka yarka wajigaaga dareemi lahaa ama qoraxda ku dhici lahayd ku bedeli lahayd waxaas dhan uu ka ilaalinaya wajigaaga wuxuu siinaya moisturizing make up na ma u baahanaysid dhalaal ku furaya iyo iftiin insha Allah sunblock aad u fara badan yahay shirkado badan soo saaray qof walba shirkado iska isticmaala muhiimada waxa waaye kareem tayo leh oo sunblock inay heshid oo ku anfacay adigana marka isticmaashid insha Allah sunblock aad u fiican tahay face-kaaga inaa u isticmaashid hadda marka ku scrub gareeyo ku massage gareeyo face-ka dhan wuu galay ma sha Allah si quruxda badan ugu soo baxay haddana jirkii sidaan quruxda badan ugu soo baxay iftiin kale ma sha Allah tabarakallah marka naftaada qurxisid adiga dhan waa isjeclaanaysaa ma dadka inta la gaarin insha Allah muuqaalkan like noo saar sidoo kale subscribe noo saar channelka siin share gareeyo oo la wadaag asxaabtaada kale haddana waxaa marsanaya lipstick oo ka samaysan Vaseline and rose kadibna dibnaha marinaya wuxuu ka ilaalinaya qolofta sidoo kale wuxuu ka qaadaya jactadka dibnaha dhan wuxuu ka dhigayaa kuwa pink ma sha Allah wuuna ku qurxinaya mar walba ina isticmaashid waxyaabaha qoynayo dibnahaaga aad u fiican tahay sidoo kale biyaha cad hadii ay kugu yareen xataa qolofta la isku arkaa waxyaabaha qandhada kale markay qandho jirkaaga jirto waa isku arkaysaa insha Allah mar walba ku dadaal dibnahaaga ina qoysid sida kugu noqdaan bushima aad u qurux badan insha Allah Vaseline ka sirkaan isticmaalay Vaseline caadiga xataa dadka qaar marsado waxaa jiro lipstick oo saliid ah oo caadi loo soo gato insha Allah hadaa jeclaan lahayd routine kale aad soo sameeyo igula wadaag qaybta commentiga insha Allah waan soo sameyn doonaa
laabtan cajiibka ahna inaa ka faa'iideen waa rajeynaya productiga timaha sidoo kale wejiga sidoo kale maanta waxaa idinla wadaagay skincare-keyga dhan aan sameysto insha Allah aad u mahadsan tahay muuqaalkan haddii aad soo gaartay guntii gabagabadii waa kaaga mahad celinaya muuqaalkan muuqaal lacayn inta aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. Bye. See you next time.